kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawanaysa xil walba idintaa email kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamij gaar oo aan warays kula yeelanayno maxamed cali jiisow oo hotel kala kacsan ka furay deegaanka dhaxan jasiira maxamed cali jiisow kusoo dhawaaw bal nooga sheekay hotelkan maadaama aad tahay ganacsadada dalka dibaddiisa ka yimid oo dalkiisa maalgashanayo bal nooga waran xaaladda guud ee halkan iyo dadka waxaad ugu baaqi lahayd. asalaamu calaykum waa mahadsan tahay muuse jiisow walaalkay booqashada aadna soo booqateen maanta aad nagu soo booqateen abaydhaxan beach waa idin soo dhaweynaynaa annagana marka waxaan idin leeyahay hadde abaydhaxan waxa waaye maaragtay waa meel loogu talagalay yacni inay ku raaxaystaan dadweynaha soomaaliyeed oo dalka gudihiisa degan iyo kuwa dibadda inooga imaanaya intaba waa meel yacni qurux ilaahay ku manaystay oo aan caadi aanan ahayn sida aad aragtaan maaragta abaydhaxan beach waxaan dhihi lahaa anigoo aan exaggeration aan samaynayn waa xeebta adduunka uga quruxda badan waay abaydhaxan beach marka ku soo dhowaada waxa waaye waa meelaan ugu talagalnay in ummadda ay ku raaxaysato waa aragtaan hadda aabbayaashii iyo ilmihii iyo iska raaxaysanaya dabaalanaya marka adinkana saasoo kale ma aragta waxaan aad aan ugu faraxsanahay inaadna soo baaqataan oo dunida inteeda kalena aad gaarsiisaan ma aragta aadaad u mahadsan tahay dadka idin imaanaya hadda waa aragnaa baabuurtaas badan oo soo booqanaysa ama u soo daawasho tegaysa ama u soo damaasho tegayso hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo carruurta maxaa ugu tala gasheen oo hadda ama jiifa ama cunto ama cabitaan wallaahi waxaan ugu talagalnay hooyooyinka iyo carruurta inay xeebtooda ku raaxaystaan oo ay yacni enjoy gareeyaan yacni oo ay ku dabaashaan markii xoogaa qabow uu galana aan ugu talagalnay waxyaabo badan oo kuleel iyo maarata cunno intaba aan ugu talagalnay oo ay isku kululeeyaan si aysan ma aragtay yacni koolbada dhaxanta isugu dhicin marka taasaan idin leeyahay tan kale waxaan annaga hotel tropical beach resort waxaan ugu talagalnay dadweynaha cunno nooc kasta gaar ahaan maadaama aan xeebta aan ku naalno oo aan nahay beach resort waxaan ugu talagalnay nooca la yidhaahdo seafood oo nooc kasta ah cunnada badda oo nooc kasta oo ay aad iyo aad macaan aad u macaan oo ay maarata dadka ay maarata ay maarata ay aad uga helaan waxaa kaloo aan u haynaa cunnooyin oo kala duwan sida international cuisine oo cunnooyinka adduunka laga cuna pizza waa u haynaa hamburgers waa u haynaa waxaan u haynaa maaragtay ii sheeg yacni any nooc waxaa kaloo aan u haynaa traditional cunno oo ay ka mid tahay yacni maaragtay yacni kasaaba ama maxog si fiican loo sameeyey oo macaanta aad yaabayso oo ay dadka mar walba ay leeyihin ma dibaddaad ka keentay war dibadda lagama keenin waa maxoggii dalka ka baxay marka wax badan oo aan ugu talagalna waa jiraan dhallinyarada waxyaabo badan oo ay ku baashaalaan ilaa habeenkii ilaa midnight ay isaga baashaalaan oo aan ugu talagalnay waa ay jiraan waxaa jira ma aragtay haddii ilaahay ku roon yahay yani live in music oo gitaarista habeenka o dhan u raaxaynaya dadka ma aragtay oo ay ku madadaashaan iyo waxyaabaha dhallinyarada ay jecel yihiin oo dhan oo ay ku madadaashaan ilaa midnightka ilaa waktiga ay doonaan waxaa kaloo aan u haynaa bilyaardiga lagu dheero oo ay jecel yihiin dhalinta inay ku madadaashaan bilyardis ayaan u haynaa iyo waxyaabo badan oo games fara badan oo kale oo ay ku dheelaan intaba waxaan ugu talagalnay inay dhalinta ay ku raaxaystaan oo ay ku madadaashaan aan ugu talagalnay marka ku soo dhowaada dhallinyaray meel kastoo aad joogtaan tropical village waxaa loo dhisay waa adinka waaye adinka ayaa laydin dhisay adinka ayaan idinkugu dhisnay inaad ku raaxaysataan dhalin iyo oday iyo hooyo iyo ilmo intaba marka ku soo dhowaada welcome
sida electric iyo biyaha badda miyaad macaanaysaan oo mishiin saartaan maceel baad leedihiin mise koronto eedaa idin taal oo dabdaliye wallaahi xagga biyaha waxa waaye horta waa cajiib yani dad badana waxay moodaan xeebaha in aan laga helin biyo macaan runtii waxa waaye ilaa cajiib ah oo aad u macaan ayaa xeebaha laga helaa hoteelkeenna wuxuu haystaa il macaan oo biyaheeda aad u macaan yihiin buu haystaa oo aad leedahay waa distilled water ama waxaad leedahay yani biyaha la yidhaahdo yani caafiga aad leedahay marka waxa waaye xagga biyaha waa taa xagga korontadana maadaama magaalada aan ka fognahay annaga oo aan ku naalno meel yani remote ama magaalada ka fog waxaan isticmaalnaa solar energy ayaan isticmaalnaa oo runtii very convenient ah ama maaragtay yani maaragtay yani shay yani aad iyo aad yani u haqabgeliya maaragtay yani baahidayna korontada aad u daboola marka taana saas waaye waxaa jira maasha allah waxaa jira maxamed cali jiisow inaad hotel kale ku leedahay oo village tropical village degmada dayneyda halkaan aad mid ka samaysay marka qudaartaas u baahan yihiin maxay ahaatay labada hotel ma waxaad ka soo gadataa suuqyada magaalada muqdisho dalka dibaddiisa mise adigaa beero waxa waaye xagga qudaarta aan ugu baahan yahay hoteelkan ama u baahan yahay hoteelka daynile labadaba waxaan ka helnaa beer yar oo ku taalla degmada daynile oo tropical village dhexdeeda ku taalla taasoo daboosha baahidayna qudaarta 80% 80% waxaan ka helnaa beerta annaga yani qudaarta aan ku abuurano ee tropical village yani maaragtay isha ku taalla marka waxaa kaloo jira maaragtay yani ukunta xaggeeda ukunta waxaa cover gareeya yani digaagayna aan ku leenahay yani degmada daynile isagana sidoo kale farmaajada ama jiiska hadba qofba siday u taqaano waxa waaye waa caanaha lo'dayna waaye caanaha lo'dayna ayaan ka samaynaa farmaajo mozzarella parmigiana ricotta iyo noocyo badan oo kale aan ka samaynaa taasoo daboosha baahidayna jiiska ee hoteelada oo maaragtay weliba waxaan maaragtay aan ugu baaqaynaa hoteelada xamar ee nairobi iyo ka doonta maaragtay turki iyo itaaliya in aan halkan aan ugu hayno fresh cheese oo yani fresh ah oo dalkooda lagu sameeyey oo hortooda lagu samaynayo marka taana waxa waaye waxaan gaarsiinayaa ganacsatadaan gaarsiinayaa marka waa sidaa waaye dhawaata maxamed cali jiisow waxaan ognahay inaad dalka dibaddiisa aad ka timid oo aad tahay ganacsatadii dibadda u baxday ee haddana dalkooda maal gashanayo ganacsatada soomaaliyeed oo dilka dibaddiisa maal gashanayo ama hoteelada waaweyn ka dhisanayo ee aan arkaynin maxay ahaatay barwaaqada dalkooda iyo dabeecadda iyo maxay ahaatay waddankooda aan kulaal iyo qaboomidda lahayn maxaad ugu baaqi lahayd ama aad tusi lahayd wallaahi runtii ganacsatadii maalkooda u quuri weyday dalkooda ee dal kale yani ku qarash garaysay ama ku investi garaysay waxaan dhihi karaa waa khasaareen waayo waxa waa ninka dalkiisa xoolihiisa u quuri waayey ee dal kale yani geeyey waba khasaaraba taasaaba khasaaro ugu filanba marka waxaan dhihi lahaa niman yahow ganacsatada soomaaliyeed dhammaan waxaan idinkula tali lahaa yani mudnaanta koowaad siiya dalkiina siiya nabadgelyada aad maqlaysaan dalka oo aad leedihiin nabad ma aha waxaa uga wacan lack of investment yani dalkii oo aad xoolihii kala cararteen xaggee cunuga yaroo dariiqa jooga oo shaqo ka helaya haddiiba xoolihiiba aad nairobi iyo aad dhigteen iyo turki marka taana waxaan dhihi lahaa yani imaada xoolihiinna ummadda ha idinkula noolaato yani investigareeya dalkiina ku investigareeya yani u exda soomaaliya taasaan dhihi lahaa riski wax la yidhahdo adduunka dhan waxaa jira riski factor wax la yidhahdo meel uusan riski jirin ma jiro laakiin anaa idiin sheegaya halkan hadda abaydhaxan oo aan hoteelka aan ka furay ummadda way ka baqi jirta waxay dhihi jirtay waa khatar waxaa jooga wiilal yaroo qoryar oo mooryaano ay u yaqaanaan iyo waxaa jooga heblow iyo waxa noocaasoo kale ah marka aan soo degay hadda waxa waaye 100% nabaddii
ereyadan ka jiri jirta way soo noqotay dadka way ku dhiiradeen way yimaadeen waxay dhammaan waxay yidhahdeen war meesha waxaaba laga furaba meel lagu raaxaysto maxaan ka baqnaa wax laga baqaayo ma jiraan marka waa sidaa waay yaan la noqonin cigaal jidaado habeen dhangeed hoos fadhiyey geed hor fadhiyey oo laa maarata war libaax baa meesha fadhiya ya oo subax la kulmay maarata geed yaroo meel ka baxay marka ha ka baqina dalkiina ha ka baqina ku dhiirada sacrifice yani u sameeya sacrifice adduunyada waxaan sacrifice loo samayn lama dheefsado u hura naftiina iyo xoolihiina dalkiina aniga intaa baan dhiilaa waa mahadsantaha waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna waxaan ognahay koonahan magaalada inuu yahay halkan shabeellaha hoose inuu yahay midda kale koonahiisa kale dayniile ayaad ka furatay mid saan oo kale ah oo aad ku maalgelisay labada koonayaasha maxaad ku doorateen dadka qaar waxay leeyihiin magaalada gudaheeda maxaa u diiday cali maxamed jiiso maxaa u diiday gudaha magaalada abow taa waxaan kaa dhihi lahaa yacni ganacsiga adduunka isku mid ma aha midna waa mid loogu talagalay yani inner city ama magaalada gudaheeda loogu talagalay midna waa mid loogu talagalay yani magaalada dibaddeeda oo yani loogu talagalay yani sida xeebaha yani waxay ku macaan yihiin in dibadda magaalada laga sameeyo hoteelada qaar waxaa waaye waxaa la yidhaha resortsaa la yidhahdaa resort waxaa loogu talagalay magaalada meel ka baxsan oo hawo macaan oo yani najarkii oo ka muuqdo bay'addii xoolihii iyo dhirtii iyo quruxdii oo qofka maarata u soo drive garaynayo inuu maalinta ku enjoy gareeyo oo baabuurta iyo yani trafficka maaragta qayladiisii iyo uga baxa maaragta marka aniga waxaan aad iyo aad aan u jeclahay nolosha noocaasa ma jecli yani nooca inner city business ma jecli marka that's why aan dadkayga aan leeyahay yani meelo ay u soo baxaan oo ay u soo drive gareeyaan oo yani hawo macaan iyo yani ay ka helaan maaragta dabaalasho iyo aan ciriiri ahayn dabaalasho iyo hawo macaan iyo cunno macaan oo kaa deganaysa markii cunnada magaalada dhexdeeda aad ku cunayso kaa degan maysa laakiin tan aad ku cunayso meelaha noocaan oo kale magaalada bannaankeeda waa kaa deganaysa appetite-kaaga xataa furmaya marka taasaan ugu talagalay dadka inay maarata yimaadaan ay ku soo raaxaystaan ay u soo drive gareeyaan waa mahadsantaha ugu dambayntii waxaan aragnaa hotelkan tropical research oo ka furan baydhaxan magaalada muqdisho koonaheeda inuu ka yar yahay kii dayniiloo kale marka mustaqbalka ma laga yaabaa sida kaas aad u ballaariso oo aad dabaasha iyo baasketka iyo wax walba aad uga samayso iyo beeraha inaa halkaana sidaasoo kale aad ka samaynayso ma kugu tali jirtaa absolutely Muuse absolutely hadda tanaad arkayso oo tropical village baydhaxan beach waxay furantahay muddo sanada waxaan u malaynayaa haddii aan sanad kale aan ku darsanno waxaad ku arkaysaa yani isbeddel oo xag kasta ayaad ku arkaysaan marka waxaan samayn doonnaa insha allah waxyaabo badan oo dadka aad iyo aad u dhiiri geliya sidii muduladii hiddaha dhaqanka ahaayoo kale inaan u samayno meesha inaan si fiican aan u dhirayno in aan maaragtay yani aan samayno waxyaabo badan oo tourist attraction ama soo jiidanaya dadka absolutely culuso waxay ka mid tahay dadka daawashada u soo taga ama tamaashaadka u soo taga ayadee carruurteeda xeebta baydhaxan hotelka ku yaala ee tropical village maxamed cali jiiso uu ka sameeyey dhowaan marka farxiyo ku soo dhawo bal maxaad meesha ka soo doontay waa u soo dalxiis tegay maasha allah tabaarakallah carruurta u soo watay inaan ku dalxiiso xagee ka soo aaday marka waxaa ka soo aaday gaar ahaan degmada dayniile gaar ahaan xaafadda dibile aad ka timid waxaad u imaatay inaad halkan xeebtan aad ku soo damaashaa tagta adiga carruurtaada oo aad neecawdan aad ku dabaashaataan oo waqtigiina aad ku dhamaysataan maasha allah tabaarakallah aasaas hore ma u timid marka maya markii ugu horreyso waan yaa kugu dhiirigelay inaad halkan soo aado wallaahi aniga le fikradda iga timida maxaa lagugu sheegay marka inaad halkan yaaliin wallaahi waa dalxiis wacanaya allaalay ku dhahay saasaan ugu imiday marka magaalada kale maxaa uga dooratay ma qabyaalad ahaana ugu dooratay mise waa iska jeclaaday maya anigaa iska jeclaaday weligay jasiira ma imaanin inaan hadda imaado ayaa iska go'aansada saasaanu ku imid yaa kula socda marka adiga aniga carruurteyda isaan nahay
waayahay magaari waxaa ku imaateen oo familiyaara mise waxaa ku imaateen mooto oo ijaari maya gaari familaan ku nimidno aabbeen nagu wado waa tahay intaas ayaan kusoo koobinaa daawadayaal dhammaantiin akhyaarta hawada naga daawanaysaan barnaamijkii aan waraysiga gaarka kula yeelanayna maxamed cali jiisow oo Tropical Hotel uu ka furay Abuudhaxan tan iyo inta aan barnaamij midkaan lamida aan hawada ugu kulmi doono waa Muuse Maxamuud Jiisow iyo Saciid Xasaas oo idin sidaas iyo nabadgelyo